بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يجب لها سومالوين ميل بديدة كجوتان waxaan idiin rajeynayaa caafimaad iyo cibaado suuban. Faadimo Fuaad sidaad ogsoontihiin hadda ka horba barnaamijka kaga hadlay isagoona bulshada aqoonba waxaan idhi kan waa ibtila bulshada kusoo socotee ina ka muusa. Haddaba sidaan ogsoonahay kuwo badan baa faalleynayay waa maskiin lahaayo waa ina sidaa iska aho boqolkiiba 75 haween ah yaan la xumayo. Waxaa haataba faalleymaya dadkii tilmaamaya rag iyo dumar lahaa ee waxaan faalleynayaa ujeedkiisii wax maanta ka hadlay iyo arrinkan uu leeyahay aniga iyo nimcaan hilaa ayuuna dhex maray iyo fiirada tana jacaylkan heesta ana lay qaaday. Haddaba waxa haataba inta aan faalleyn bal fiiradiisa iyo fikirkiisa iyo fiidiyowga soo duubo nimcaan ku sheegayo ila daawada. Albada ma rumaysan heesta aan in loo qaaday. You cannot believe my hano. Let me give you one tip. Just quick. haddaba dhabarka wuxuu ku tilmaamay iyo luqunta aan muuqan in nimcaan muhiimadu waxay sidaan ogsoonahay nimcaan wuxuu yimid Yurub isagoo fan iyo shooyo badan ku qabtay kulana qaatay bulshada Soomaaliyeed ee fankiisa taageerta. meelaha uu tagay waxa kamid ah Finland, Sweden, Denmark. ma la kulmay mise lama kulmin. Fuaad Makeup maxaa ku sababay arrinkan inuu ka been sheego haddii uu been yahay masarunba dadka u soo diray maxay ka faa'iidayaan Fuaad muxuu ka faa'iidayaa intaasoo fikir oo kala duwan ayaanu faalleynaa iyo wax walba aragtiya oo xaqiiqo ah. inagoo ku bilaabayna kulankii iyo imaanshihii nimcaan Finland ma aha mid uu kula kulmay Fuaad Makeup. maya Fuaad Makeup iyo nimcaan ma kulmin. sababta koowaad tilmaanta aan idinku siinaya waxay waa mid oo ninka ay wada socdeen ee la yiraahdo DJ Subeer wuxuu ahaa mid ogsoon sumcad darrada uga imaanaysa nimcaan la kulanka Fuaad. talabaad nimcaan waa nin aragti dheer oo xaas leh xishmadda iyo sharafta uu Soomaali ku leeyahay iyo habdhaqanka diimeedna iska ilaalinayo. taas waa daliil iyo tilmaam la tilmaami karo. haddaba tan labaad oo ah maxaa ku kalifay ninka kan la yiraahdo Fuaad Makeup in uu beenta ka sheego oo nimcaan yiraahdo nimcaan baa alwada beerka beelna ila kulmay. tan koowaad oo ninka la yiraahdo Fuaad showga ayaa loo diiday kolka uu nimcaan Yurub yimi ama Finland uu tagay. waxaana lagu yiri ma soo gali karto maadaama bulshada Soomaaliyeed badeeda isku raacsan yihiin inaatay nin dhaqankiisu uu samacnayn oo diintii eebaha iyo tilmaantii Soomaaliyeed ba ka tagay. marka intii meesha lagu dili lahaa ama ceeb dhici lahayd inaad naga tagto aad noo soo dhawaan baa habboon. haddaba yaa kale ka dambeeyo arrinka ku lamaan Fuaadna kula jira waxa kula jira fanaaniin Soomaaliyeed ama bulshada kuwa caanka ah sidaan ogsoonahay. fanaaniinta Soomaaliyeed badeeda kuwa xin iyo xaasid isku ah oo horumarka iyo heerka isu diida. nimcaan waa nin badanaa qaranka iyo Soomaalinimada tilmaanteeda bixiya. heesii dhawaan uu qaaday shacab baxayna waxa kamid ahaa buuraha Solad baa u dheer hankana Soomaalinimo. ma ninkaas ninka aynu aragnay camal xumadiisa iyo ceebtiisa u dhawaanaya nin walba garasho dheer uu garanayo. haddaba kuwa ka xun sumcadda uu Soomaali ku leeyahay iyo farxadda uu reerkiisa oo uu muddo u saburayay kula noolyahay kula joogo iyo inankiisa yar ayaa waxay kaga faa'iideysteen caradii uu Fuaad u qabay Fuaad iyo xafladii loo diiday kuna yiraahdeen ceeb u samay si fankiisuna hoos u aado reerkiisuna u dago. hase ahaatee annagu waxaan nahay kuwo helaya beenta iyo xumaanta ay faafinayaan runtana soo bandhigaya. haddaba su-aasha qof kasta isweydiinaya wuxuu yiri ninka kan waa kuma kulamaan Fuaad oo Fuaad leeyahay waa nimcaan ama Faadimo Fuaad. ninkan Faadimo Fuaad uu kulamaayay ana idin sheegayo sidaad ogsoontihiin ninkan nimonaaga imika Carabiga cajabibo way isu sheegtay Soomaali mooyee ceel helay aadanaha kale ee qurbaha u joogay oo bari aan fogeen waxa ku lamaana mid Caraba oo aaladaha iyo miiriyaha la wareegay isagoo samsam sheeganaya. kanuna waa Ethiopian hilib ceerin ka xishoon waayna deenin dhabarkii ka xishoon maayo oo wax aan xayay iyo xishoon lahayn. haddaba gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkan galaya fariinta tanna waxaan u dirayaa nimcaan uma baahna inaan xuso Faadimo Fuaad sababtoo ah waa nin eebihii abuuray ka xishoon waayay isagoo boqol la ahna hankiisu siiyay inuu nin u foorarsado. safariintu waxay ku socotaa fanaan qaran oo mudan xushmo iyo ixtiraam. waxaan ku leeyahay nimcaanow marka hore anoo ku dhageysiinaya erayo adigu aad ku heestay oo aan jeclahay inay qulubtaada iyo iimaankaagana ku jiraan oo ahaa
qabkayguma suuli karo. Waxaan rajeynaya inuusan qabkaagu suulin. Si walba ay kuwa xumaanta jecel u maagaan inay xumaan kuula doonaan oo sumcadaada u dilaan. Watan kale samada calanka kulana ayaa sakataagi faray adkay soo samir lahaa ilaha soonka ifaray adkayso sabir lahow bilaha soonka ay baray. Saaxiib maxaanba kuu sheegay hadalkii baada isu dhameeyey gobol liico ha jabin. qoyskaaga wanaagsan iyo waxa weeye qadarinta aad u hayso kuwa qowlka xume ka xun naka qaadan mayno. intaasaan barnaamijka gunaanid iyo gabagaba inoo ah. hadalkana waxaan ku xidhay Soomaaliye waxaan idin rajeynayaa meel walba dunida ka joogtaan caafimaad iyo cibaado suban iyo camalka wanaagsan yaanan ceeb isla maagin. adduun waa ayaama camalka khayr ha la isu tilmaamo wixii xun ha la iska mooso. qof walaalka ceeb ha la maagin adigaba waa laga yaabaa beritoole in ceeb aadana aan xishoon oo kala maago. qoysas qurux badan oo kalgacayl iyo karaamo isu haya haddaad aragto iyo aadana ixtiraam iyo xushmad mudan ku xushmay oo xumaan ha la doonina xushmo la doon. kan waa youtube-kiinii Same iyo Wanaag baad mar walba ugu imaanaysaan. subscribe-tuna waa dhankiina si aad ula socotaan war wanaagsan oo dhagihiina oo roon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.